hadday tahay markii kugu horreysay aad channelkeena soo booqato waxaan kaa codsanaa maxay ahayd inaad channelka kusoo biirto kadibna subscribe aad saarto aad gambaleelka furato kadib notificationka aad all ka dhigato si ay kuu soo gaaraan dhammaan casharada aan samayn doono. Hi guys, assalamu alaikum. Waniga Cabditaah Ibrahim xagga nagala socotaan waxa way Soomaaliyeed maanta waxaan ka hadlaynaa cashar muhiim ah oo laga yaabo badankiina garanaysan inta kalena inay garanayeen haddii aad taqaanid qaabka Gmail-ka loo sameeyo casharka waxaan ka hadlaynaa Gmail-ka sida loo sameeyo haddii aanad garanayn labadaba waa ku muhiim casharku haddii aad garanaysid haddii kalaba waxaan kugu sheegayaa qaabka ugu saxsan ee haddii aad Gmail samaysanayso loo sameeyo waxaan jeclaan lahaa ilaa dhamaadka casharka inaad daawatid haddii aad ka hesho casharkan uu faa'iido kuu noqdona asxaabtaada la wadaagtid haddaba casharkeena inta gallo waxaad ku qori doontaa browserka aad jeceshahay maxay hayday create Gmail marka ku qorto okay click wasinaysaa waxa ku soo bixi doona maxay hayday linkiga ugu horeeya ayaad maxay hayday ku dhufan doontaa okay the first linkigan ku dhufanaya okay waxay soo bixi doona xagga saad ka arkaysid create so I'm gonna ku dhufanaya taas ma ku dhufanaya create okay create markay soo baxdo waxa xaggan soo baxaya inaan Gmail cusub aan samaysto okay Gmail waxa laga yaabaa inaan ku qorto magacaan doonayo let's say okay marka waxaan ku qoray sanskar oo kale marka Gmail ka hadaan doonayo inaan Gmail kaaga horma isticmaalaysa ku qoray xagga saad ka arkaysid wuxuu qoran Gmail kaaga horma isticmaalaysa mise isticmaalaysid mise Gmail cusub isticmaalaysa okay marka Gmail cusub baan gelinayaa let's say sanskar sanskar 744 oo kala siiyay marka xagga waxa iska ilaalinaysa khalad ba kugu dhacaya lama ogola inaad space u dhaxaysiiso no space way wasku wada xiriirsan dhamaan shay ama dot wada dhaxaysiinaysa let's say in this case aan idhaahdo dot baan dhaxaysiiyay okay so marka waxaan sameeyaa passwordkiina sameeyo passwordka waxaan ku tusi doonaa iminka confirmation kan ka qaado oo macnaha ku tuso passwordka inaad ka dhigato strong oo calaamado iyo waxyaabo badan isdhex geliso waa sababta ugu muhiimsan aan ku tusiyo casharkina sida saxda ugu samaysato passwordna iska qato 1234 ama magacyada 1234 macnaheedu ku sameynaysa laakiin inaad symbol iyo calaamado iyo maxay wax badan isgeliso ayaa ugu muhiimsan let's say waxaan rayaa okay capital baan ka dhigayaa salaan let's say salaan tan waxaan doonayaa inaan sameeyo maxay ahayd slash oo kale 1234 ayaan oranayaa okay waxaan doon ku soo xidhay calaamad maxay ahayd hashka okay so basically waxa weeye inaad ogaatid passwordka inaad isticmaal kalisid samples استعمال كريس maxay heeday upper cases iyo lower caseska maxay heeday calaamado waaweyn calaamado yar marka waxay noqonaysaa in lagu haakareeyo ama laga jabso Gmail-kaaga inkastoo adag tahayba waxa ka sii dhigaysaa maxay heeday mid adag okay marka calaamadahaas oo ku dizayn ka dhigato maxay heeday passwordka okay kadib waxaan oranayaa next baan oranayaa haddii Gmail-kii saxan wuxuu oranayaa ku saxan hadaan u saxsanayna wixii oranayaa kuma saxsanaa in this case wuu saxsan yahay okay okay imika waxaan ka dhigayaa maxay ahayd casharka inaan maxay ahayd geliyo passwordkayga okay okay waxaan gelinayaa maxay ahayd numberkayga si lagu soo diro maxay ahayd confirmation code kugu muhiimsan ku sheegay waxa kamid ah in aad recovery email aad geliso wuxuu ka caawinayaa recovery email-kaagu maxay ahayd in aad computerka waxaan leeyahay Gmail-kaaga haddii aad ilowdo aad dib u heli karayso ayuu ka caawinaya marka waa important maxay ahayd Gmail-ka inaad recovery-ga geliso okay marka email recovery-ga gelinayaa okay markaan geliyo waxaan sameynayaa bishan dooranayaa randomly waan soo qaadanayaa okay 1998 oo kale genderka ama waxa tahay female male anu male baan dooranayaa maadaama qof ahay okay marka waxa sameynaysaa maxay ahayd wuxuu ku waranayaa xagga sarka arkaysid miyaan ku sameeyay maxay ahayd say miyaan ku sameeyaa in confirmation kaaga mise skip ad qoraysaa not now oraysaa let's say aan wax horeyn not now oo marka aad confirmation sameysay si aan casharka u fudeeyo okay xagga sarka arkaysid waa akhrinaysaa maxay ahayd miska xaggan kugu yaala okay kadibna waxaad tagaysaa I agree waan aqbalay okay click waad siinaysaa okay marka imika mostly waad dhamaysay maxay ahayd Gmail-kaaga maxay ahayd qaabkii aad u sameysanaysay ama maxay ahayd Gmail-ka qaabkii u sameysay waad dhamaysay oo macnaha Gmail-kaaga uu ku sameysay xagga sarkaarkiisa uu ku sameeynaya waxyaabaha aad maxay ahayd awood u leedahay ayuu ku sheegayaa markaan waxa garan ku dhufanayaa waxaan Gmail-ka caadiga aan tagayaa
okay gmailka ayaan tagaya marka wuxuu ku sheegay set upki inta dhameysay iyo inta ku harsan okay marka okay okay set kaarka sid xaq ku soo dhigay shayga ugu horeeyay inaad dhameysay macna setting up your new Google account kaagi okay xagga set kaarka sid waxaynu maxay heeday dhameynay ama maxay heeday marka Google kii xaskatid baranay okay wuxuu ku sheegay maxay heeday waxyaabihii aad dhameystay iyo waxyaabihii ku harsanaa ee Gmail-ka qaabku way kaaniyay inuu qaabkan uu yahay okay haddii profilkii waxyaabaha sameynaysa profilka haddii aad comp ku xiranaysa maxay heeday mobilkaaga waxyaabahaas oo dhan waad samaynaysaa okay so basically casharkeena maanta wuxuu ku ekaa in aan samayno macna Gmail qaabka ugu saxsan oo aan ku dareyno maxay heeday passwordkaaga inaad ka dhigan karto mid adag oo hore aanad uga dhigan jirin haddii aad ka dhigan jirtay waa maasantay inaad recovery email ku darsan jirtay oo kaa caawinaya haddii uu kaa xumaado maxay heeday emailkaaga passwordkiisa aad ilowdo inaad ka bedelin karaysid oo Gmailku ku maxay heeday tixgelinaad ka bedelatid okay kuwaasoo dhan ku soo aragnay marka haddii videogan uu ku caawiyay waxaan ka codsan lahay maxay heeday inaad subscribe taarto asxaabtaada la wadaagto waanad mahadsantihiin daawanaysay haddii maxay heeday hore u taqaan information kan oo in yar uu kugu darayna sidoo kale waxaan jeclaan inaad like saarto videoga asxaabtaada la wadaagto anigana aad caawiso maadaama anuguna aan saas oo kale ugu dadaalina macasharo fiican siiyo